السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. كسر هذا فيديو مانتا فيديو كسر هذا عادي بمحسنتين شرفت قرح بدنا إلى سحطان كل جمود من السلام يا مانتا فيديو نروح بسبسين حي إنه ويلاش الشقة البراء وحبلها لنسيه هبله ويد علينا محاس سلوشنا محينو سمين كراع واي بهبلو كذا وجران hablaha iyo inamada hooyooyinku may kala jecel yihiin miyaan isku mid ahayn maxay hablaha noo nasin waayay maxay hablahan daalay maxay hablahan dhidisan maxay hablahan garbi jabeen maxay hablahan dhabarkii jabay maxay hablahan adimadii gororeen maxay hablahan aan loo turayni hablaha in la qurxiyay ahayd in la dhadhayay ahayd in xino loo mariyay ahayd in loo diyaariyay ahayd guurka soo socda inamadana in murqiyada loo dhisay ahayd inamada murqiyada waaweyn ee guriga iska dhex fadhiya ee kuraasida si ay u fadhiyeen ay baridii iyo kursiga isku dhageen maxaa shaqada loo bari waayay maxaa inamada weelka looga qaadaa Soomaalidu maxay inamada ugu shaqeeyaan wiilasha maxaa loogu shaqeeyaa wiilasha xoog bay leeyihiin ilaahay xoog buu siiyay iyaga hablaha ka xoog weyn iyaga hablaha ka shaqo badan maxay ku dhacday inay wiilasha maanta iska fadhiyaan oo sidii boqorkii Sacuudiga loola dhaqmo oo aan waxba qaban maxay ku dhacday hooyooyinku ma inamada ka jecelyihiin hablaha inamada miyaan waxba qaban karayn of course inamada waxbay qaban karaan wax kasta way qaban karaan laakiin inaga dhowra oo ilaalina dhaqankii hore islaamihii hore ee kishada cuntada ka ilaalin jiray inamada inaanay oo u ogoleynay kishada waxa yaala ogaadaan ayaa dhaqankan la soo baray diin asal kuma leh dhaqan fiican maaha teamwork waa muhiim teamworku waa muhiim in family wada shaqeystaan oo wax wada qabsadaan hadii inamada shaqada la bari lahaa dumarkan qaylinaya maalin kasta ee daalay ee dhidisan ma jireen markay guursadaan hadhowto wiilashu gurigooda way ka shaqeysan lahaayeen dumarkooda way caawin lahaayeen laakiinse foundationkii ayaa halaabay foundationkii baa ka maqan markay yaryaraayeen ayaa shaqo la soo barin marka shaqada ma yaqaanaan waxay u barteen fadhi weelka laga qaado faraxalka lagu keeno sidii islaan curyaana ayaa halka la fadhiisiyay marka hadda laga bilaabo waa in solution la nimaano solutionku muxuu yahay waa in inamada yaraanta shaqada lagu baro oo ay bartaan sida weelka loo xalo oo ay bartaan sida shaqada kitchada looga shaqeeyo oo ay bartaan cuntada sida loo kariyo cuntadu ceeb maaha qofku ka xariifsan yahay ee ka shaqo fiican yahay ayaa shaqada dadka hadhowt markay dadku waaweynaadaan in caruurtu waaweynaato qofku ka xariifsan yahay ee ka shaqo badan yahay ayuu ugu liimaanaa shaqadiisa marka guriga hadii qof ka soo bilaabo shaqada iyo mas'uuliyadda hadhowto noloshiisu way fiicnaanaysaa hadhowto heerkiisu kama dumayo hadhowto nolol fiican buu ku noolaanayaa marka hadda laga bilaabo waa inay inamada qolalkooda hagaajistaan waa inay weelka xalaan waa inay cunto kariska bartaan hadhowta markay guursadaan uma baahanayaan in wax loo diro waxaan automatically iska garanayaan shaqada gabadhooda way caawinayaan gabadhooda kitchada ku daashay oo ku jirto umula ama uur leh shaqada kuma eegayaan way isdirayaan waxa guriga u baahan yahay ayay wax ka qabanayaan marka qoysyadan burburaya ma jirayaan guurka waa lagu liimaanayaa hadii inamada shaqada la baro guurka waa lagu liimaanayaa hadii inamadu ay gartaan mas'uuliyadooda iyo dantooda haday gartaan wiilasha hadii la baro dantooda hadhowto guurka way ku liimaanayaan marka taladeed anigu waxay tahay in caruurtana foundation ka dhisno wiilashana in shaqada baro sayna hablaha u ilaalino ee shaqada mas'uuliyadda u baro waa inay nimadeeduna bartaan hadhowto markay jaamacadaha galaan uma baahanayaan shaqaale uma baahanayaan inay maqaaxida fadhiyaan oo cuntada dabada ka soo cunaan uma baahanayaan cuntooda iska karsanayaan dharkooda meeranayaan qololkooda hagaajisanayaan dharkooda ka wadaysanayaan waxay noqonayaan dad karti leh oo wax garanaya oo istiraya noqonayaan oo aan markasta gabadh waxba ka sugin markay guursadaan guryahooda way hagaagayaan muhiimadu waxay tahay marka hooyooyinka hadda jooga already hooyooyinkii hore may soo barin nimadooda shaqada wiilashooda shaqada may barin laakiin inagu iminka caruurteena inamadeena wiilasheena waynu tarbiyada u hagaajino oo training siino oo shaqada baro marka hadhowta markay guursadaan waxay noqonayaan dad karti leh oo dumarkooda caawiyo aan guriyuhu ka dumin
oo aan gabadh gacanteeda markasta wax ka sugin ee iyaga wax qabsan karaya ayay noqonayaan. marka insha Allah laga kaco fadhiga, wiilasha shaqada hala baro. wiilashan sidii aad moodo boqorkii Sacuudiga la moodo iyo boqorkii Imaaraadka ee kursiga maanta oo dhan fadhiya iyagoo maxaa la yidhaahaa muruqda intaa la leeyahay, xoog intaa la leeyahay, haddana wax qabsan kareen. waa inaynu wax ka bedelo insha Allah. solution waa inaan la nimaadno. solutionkan wuxuu yahay in shaqada inamadeena baro insha Allah. qofka igu raaxsan oo hoosta igu soo qor. maanta inta aan share gareynayay guusha bulshada waxay ku jirtaa inaynu wiilasheena shaqada baro, hablaheena nasino. team work waa inaynu baro inamadeena inay guriga wax ka qabtaan, waa in inamadeena la baro oo fadhiga laga kiciyo oo leysnimada laga biyo oo rag karti leh oo wax garanaya oo naxariis leh oo dabacsan inay noqdaan insha Allah bismillaahi kariim. ilaahay nagu guuleeyo. hana ila yaabina wax muhiim waxaan ka hadlayaa ma wax ceeba. qof kasta kicida wax qaban kara lama kala laha. rasuulku sallallahu alayhi wasallam gurigiisa uu ka shaqaysan jiray, dharkiisu tulan jiray, wax kasta guriga laga qabto wuu qaban jiray. marka maha wax ceeba, waa wax sunne ah. dadka kale ajnabiguna way sameeyaan. marka waxaan mudan Soomaalidu inay yare old fashion yihiin oo ka yara dambeeyaan dadka. marka inuu insha Allah waxaan wax ka bedelo kulligaanba, aniga adiga everybody insha Allah. wiilashu waa inay leysnimada laga bedelo oo from early age insha Allah shaqada lagu baro. marka aynadna amal salama arkiyo inamaduna guulkooda habbi bay ku noqonayaan, caawimadana way baranayaan, naxariistana way baranayaan, respect way baranayaan. oo smart ay dumarka guriga waa inay ka shaqeeyaan. inta badan nimanku waxay guursadaan inay gabadh guriga uga shaqeyso oo waxay u baahan yihiin u qabato, dharka u maydho. That's not the case. marka insha Allah daayigu cusubtana subscribe ku dhagsiya, thumbs up ku dhagsiya insha Allah videogan. aad iyo aad baan idin salaamayaa. maalintu hay idin wanaagsanaato. haddaa galab ku jirtaan galab wanaagsan, haddaa habeen ku jirtaan habeen wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wadinka tagaya. goodbye. salaam. bye.